wasiirka biyaha Soomaaliland Baashe Cali Jaamac oo maanta u waramayay telefishinka caalamiga ee Somali News ayaa ka hadlay wadahadallo u dhaxeeya xukuumadda Soomaaliland iyo Khaatumo wadahadalladaasi oo ka dhacay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya wadahadalka dhowr jeer baa rakamida Khaatumo iyo madaxda Soomaaliland ay soo kulmeen gaar ahaan Cali Ciise ninka la yiraahdo waa la isarkay wadahadalkaas uu socdaa laakiin inta badan waxa la isku hayaa Khaatumo represent Gresa. Yeah, Khaatumo cideebe represent Gresa, Khaatumo dhubaanto represent Gresa, maqayb kamid represent Gresa. Marka hadda lafteedu waxaa iska bedelay arrinta oo dad baaba si buuxdo iyagu taladoodii u qaatay. Marka odayaasha waxaan leeyahay waa soo dhaweynaynaa heshiiskooda diyaar baan u nahay inay yimaadaan diyaar baan u nahay inay nabadda qaataan iyagii ciday matalaan inkastaba tiradu ha noqoto waxba yaana yarayn inkastaba tiradu ha noqoto iyagii ciddii ogol inay matalaan diyaar baa Soomaaliland u tahay dadka waxay dhahaan qolyaha dhubaantay halka joogaan ogolayn in meesha loogu soo galo waan ogolahay meesha loogu yimaado diyaar baan taana u nahay diyaar welcome laakiin anaga indhaha naga lan laftoodiyo rag baa uga soo horeeyay ديكي ما دهبي له اللي بيجي مسؤول أنا هذا الصعب هو حصلت كقولمس أنت أسألك قبل حاجة باشا علي جامع وسيرك بيها Somaliland وحقوق رنكيسة سيوتا أياك هذلي سفر وكوجالا بحيي قار كمده قبل هذا بريق Somaliland يشراركي ديجانا ذا أوربوغيس ياري عديه هاي شرار مدفر بدل نقص وشقية ومهمة وهو شركة تدل وينوحها هاي أنت تكمل سرعة الصدق شيء وين باوربوغيس كان عاي عايزين وحجرتكي قراددي سرادينكي أبونيهنكي علماء بعيد دجانا ذا كسوتشي ذا سو كونفوتي سناك حيسمو يسول بيسوي مهلكا وما يكسو صارين دي حاجة غيرها لو بدلنا وحلينا على محمود جراد بري من تشيلي يكسكي قبل شركة أوربوغيس وتري شركة سو حي هشيش كوجرين دولة Somaliland يبيعها سوا الجوي هشيش كانوا واركتين وهشيش واحتر Somaliland يدك الدجاجة دجنب عادي واحتر بدهان واه هشيش كان وحلو هوس كحريقة يا كوبي لا تسلط محل دولة لا تسلط شهورة سياسية والدجاجة كانت تكتري وفور the first time ميرو للتستين ay qaateen Somaliland si buuxda uga mid noqdaan iyaguna wax xaq u leeyihiin ka helaan way xaq ugu leeyihiin gutaan marka heshiis qaale waa buuha meelahaas ka baqmaqlaya heshiisku waa kan oo dad baa xabad lagu hayo kan oo iska cay waxyaabaha ragga qaarkii warbaahinta ka sheegayaan kadibna markii heshiiskaas soo dhamaaday محمود قال قريب بهاي قريب تلابات أنا نقول لي لاسعانو يدقان كسول تبى نشيل وين بعد عديك العي محمود قال سووا من يسوي بالسؤال لا نقارتي هالشيء قالوا يسقى وقالوا رجالي وحيابه ترى خلافات هاي كانن سياسة وحيابه كانن لو حلو صار جدي ترحم بحسب رئيسه ده حنقول قياس كانوا هالشيء كاسمتلو أنا فرحان وين بعيد هدت كنا فرحان وين بروتها for the first time بياس الدجاج أنت على أي جوان سلاق عرضه أو يسوي مدان على عديه أو يسوي مدان على البوغيس وأذن وين وفعيه وحنا كبدل كريه السياسة دي منطقة دكتور wasiir Baashe waxa uu baaqiya fariin isuwan waxa uu diray bulshada bariga Somaliland isagoo oo tilmaamay in ay qaataan nabadda iyo amniga waxa uu sidoo kale ka hadlay diiwaangelinta codbixiyaha ee ka socota gobolka Sanaag lana ka bilaamato gobolka Sool inaga xoogaa leeynoo yartuuto tareeku aad buu dheereynaya waxa diiwaangelino inaguna hadda inuu Somaliland qaadanay diiwaangelino oo barbar socota waa arrin adag laakiin loo baahan yahay inaynu ka gudubno marxaladda waxaan leenahay codkiina khasaareynina diiwaangelinta faa'iidooyin badan bay leedahay waxaa lagu sargoynayaa xitaa jaangooyada dalka wixii loo qorsheynayo ama horumar ha noqoto ama arrin ha noqoto waa arrin faa'iido u leh inay isdiiwaangeliyaan waa la isu gobol faalayaa ana intana
waxaan leenahay siyaasaddu doona qofku ha aaminsanaaday inuu isdiiwaan geliyo waa xaq uu leeyahay inuu isdiiwaan geliyaa loo baahan yahay cidduu rabo berrinta ha u codeeyo siduu doono ha yeelo laakiin dhammaan dadka waxaan leenahay isdiiwaan geliya dan baa ku jirteen barigana waxaan kaloo leeyahay waad ka hadleen galbeedkee amnigana ku dadaala si horumar loo helana waa in amniga nabad la hela Somali News TV magaalada Hargeysa.